bismillaahi raxmaani raxiim waxaan daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa janalka xogta miidiya waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan diiradda ku saari doono doorashada ka soconaysa magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hiirshabelle. haddaba Cali Guulaabe madaxweynaha dowlad goboleedka Hiirshabelle waxa uu mar kale hor istaagay damaca Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. halkan ayaa daawadayaal idinkugu soo gudbi doona maxay tahay sababta saraakiisha ciidanku ugu biirayaan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. sidoo kale daawadayaal waan soo qaadan doonaa ha yeeshee intaanan guda gelin waxaan daawaday ka dalbanaya oo ka codsanaya muuqaalkan like saarto la wadaagta asxaabtaada adigoo subscribe inoo saaraya channelka furan ee gambalaalka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. sidoo kale daawaday muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag. markaana daawade waxaad ku soo dhawaataa warbixinteena. Cali Guulaabe ayaa mar kale hor istaagay damaca Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Fahad Yaasiin iyo Farmaajo oo rumaysan in aysan xubno baarlamaan oo xoogan ka heli doonin Jowhar iyo Beledweyne ayaa saraakiil sirdoon ah u diray Guulaabe kuwaasi oo aan helin jawaab ku filan. saraakiil ka tirsan sirdoonka Soomaaliya oo wakiil ka ah Farmaajo iyo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ujeedkooduna yahay in ay Guulaabe kala heshiiyaan boobka qaar ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa maalintii labaad ku sugan xarunta dowlad goboleedka Hiirshabelle ee Jowhar. sida ay xogta media u sheegeen xubno ka tirsan howlwadeenada xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Hiirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guulaabe kulan qarsoodi ah oo saacado badan qaatay ayaa ka dhacay madaxtooyada Jowhar kadib markii gawaari muraayado madow ee xarunta ku tageen saraakiisha ka socday Villa Soomaaliya. saraakiishan waxaa hogaaminaya Cabdiraxmaan Kulmiye Xirsi oo ku magac dheer Cabdiraxmaan Dheere oo ah qabaanka ugu weyn ee Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, halka ay weheliyaan Cabdullaahi Kulane Jiis oo Farmaajo ku eebah iyo sargaalka nisa ugu magacaaban maaliyadda oo wiilka Fahad loogu yeero ee Mukhtaar Ismaaciil. xogo sirdoon ah oo ay xogta media helayso ayaa sheegaya in ay Cali Guulaabe u geeyeen magacyada shakhsiyaad uu Fahad Yaasiin doonayo in la soo saaro kuwaasi oo intooda badan ka soo jeeda beelaha Ciise Mudulood, Ujeejeen, Hilibi iyo sidoo kaleba Moobleen oo ka mid ah beelweynta Mudulood ee ku dhaqan Shabeellada Dhexe iyo sidoo kaleba gobolka Hiiraan. macada jawaabta rasmiga ah oo ay kala kulmeen Guulaabe ha yeeshee ila loo qaateen ayaa xogta media u sheegay in madaxweynaha dowlad goboleedka Hiirshabelle uu Cabdiraxmaan Dheere iyo kooxdiisa ku wargeliyay in ay dib ugu laabtaan magaalada caasimadda ee Muqdisho nabad suguduna faraha kala baxdo arrimaha doorashooyinka maamulkiisa. Guulaabe oo hore kooxda waqtigu ka dhamaaday ugu wargeliyay in uu ka laabtay qorshe ay hore iskula dejiyeen oo ahaa in qaar ka mid ah kuraasta taalla Beledweyne loo soo raro Jowhar ayaa mar kale u muuqda in uu hor istaagi doono damaca ay ku doonayaan boobka kuraasta beelaha qaar. sida aan hore u baahinay madaxweynaha gobolka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe wuxuu sanadkan doonayaa in uu disho musharax madaxweyne cusuble oo ay qaraabo dhow yihiin kaasi oo ah shakhsiga ilaa hadda xubnaha ugu badan uga soo baxeen Jowhar, halka uu muuqdo doorka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynayaashii hore ee dalka Soomaaliya. Fahad Yaasiin ayaa lahaa sababtii uu Guulaabe ku noqday madaxweynaha Hiirshabelle waxaana inta badan xildhibaanada maamulkaasi laga qoray xarunta hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA. ha yeeshee qorshihii uu ka damacsanaa Guulaabe ee ahaa hirgelinta boobka kuraasta baarlamaanka heer federaal ayaa fashil u muuqda. ugu dambeynna daawadayaal haddaan eegno maxay tahay sababta saraakiisha ciidanku ugu biirayaan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Foosiye Yuusuf waxay hore u soo noqotay wasiirka arrimaha dibadda iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya intii u dhaxaysay 2012 ilaa 2014. hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga qaranka oo loo soo gaabiyay NDP oo ah xisbiga kaliya ee ka jira Soomaaliya ee hogaamisa haweeney Foosiye Yuusuf Xaaji Aadan ayaa nasiib daro weyn ku tilmaamtay in saraakiisha ciidanka ay u kala ordayaan ku biiritaanka baarlamaanka. habdhaqankan ku soo kordhay siyaasadda sanadkan ayay u sababaysay shaqo la'aanta ku habsatay saraakiishii khibradda lahaa kuwaasi oo iyaga oo jooga sifo ka baxsan xeerarka ciidanka
lagu dul darajeynayo dhalinyaro la doonayo in si gaara loogu adeegto, waxayna tallaabadaasi ku tilmaamtay qalad weyn. Waa qalad in nin korneel ahaa 20 sano wiil yaro uu dhali karo la yiraahdo generaal baa tahay oo laga dulmariyo. Ciidanku wuxuu ku shaqeeyaa moral iyo ixtiraam. Nasiib daro korneeladii iyo jananadii maanta baarlamaanka ayay u cararayaan sababtoo ah shaqo looma dhiibayo ayay tiri Fawziya. Sanadkan ayaa la filayaa in saraakiishii ugu badnaa ku biiraan baarlamaanka, waxaana durba la xaqiijiyay ku dhawaad 5 janan halka 10 kala diyaar u yihiin baratanka kuraasta dhiman. Saraakiil ka tirsan Nisa ayaa si weyn uga dhex muuqan doona kuraasta bishan la qorsheeyay in la doorto. Xogta Media ayaa fahamsan in kooxda farmaajo doonayaan in inta badan saraakiisha u adeegaysay 5 sano ee la soo dhaafay u raadiyaan kuraas baarlamaan si ay u helaan xasaanad, maadaama ay gaboodfale xoogan geysteen intii ay xilka hayeen, halka kuwa aan 5 sano shaqo qabanna nolol ka raadinayaan baarlamaanka. Fawziya Yuusuf Xaaji oo ah haweeneydii ugu horeysay ee si rasmi ah ugu dhawaaqda in ay tahay musharax u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya doorashada la filayo in ay sanadkan ka dhacdo dalka, ayaa sheegtay in sida hadda wax ku socdaan ay sababi doonto in AMISOM aysan ku bixin xilligii loogu talagalay. Fawziya Yuusuf waxay hore u soo noqotay wasiirka arrimaha dibadda iyo ra'iisul wasaare xigeenka Soomaaliya intii u dhaxaysay 2012 ilaa 2014, xilligaasi oo uu dalka hogaaminayay madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud. Masalana in haweeney qabato jagada ugu sareysa dalka Soomaaliya marka loo eego dhaqanka soo jireenka ah ee soo tixnaa tan iyo markii la yabyabay dowladnimada Soomaaliya 60 sano ka hor. Guud ahaan daawadayaal way naga intaa warbixintii aad ka daawanayseen channelka Xogta Media. haddii aad daawatay like noo saar, subscribe noo saar channelka fura gambalaalka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee farada lagu gudbiya commentiga aragtidaada inagula wadaag. tan iyo warbixintan teeda kalena inta dib isugu kulmi doono nabadgelyo.